waxaan la rabaa in loo eedoobo oo nabadda loo eedoobo la rabaa weli ma aan arag nabadoon xilka looga qaaday waa nabad jecel iyo maalin kasta nabadu keenaa laakiin nabadoon xilka looga qaado waa aragna waa doqon oo qabiilkii kale ka dhici waayay horta waa arag marka waxaan rabnaa in la arko nabadoonna u eedoobay oo xilkii looga qaaday wuxuu noqda ninkaani maslixi maalin kasta nabadu keenaa nabadda ha la qaato yidhaahdaa horta saasaa nabadoonno laynka rabaa waxaan ognahay dad aan adinka ahayn inay waxa marka hore ay kicinayaan oo ay ka shaqaynayaan oo ay sharta ka shaqaynayaan annagu waa ognahay dhaqaale kuma bixidin marka koowaad in fidna kacdo laakiin marka dambe shaqadu waa socotaa dhinac kasta waa isku hal nuucna waa dadka meeshaan degani waa dad walaalaa waa dad wada degan waa dad isku nuuca waa dad isku daysada walaalayaalow 44 sano colaadda meeshaas ka socotay horta waxaad ogaateen waxa dadku isku leeyahay wax la yiraahdo dhul waaye oo sixir noqdo hadda waana qabiil kasta loo wadaarsanaa dhul ku wada hadlaya waxaan ogtiin dhul dambe oo la kala qabsaday meeshaan hadda oo la isku dilaayo kuma harin meesha la isku dilaayo oo lagu dhamaanayo dhul dambe oo la kala qabsanaya oo ama qol degta ama qol dhisata kuma harin in ummaddu dhamaataa xugman marka ummadaasi sida ay soo dhabaalahayn in laga wada shaqeeyo ayaa muhiim ah dadkuna qof walbana ilaahay inuu inta ka cabsado maalinta qiyaame ayaa dadkan sugaysa xisaabta ayaa sugaysa maalinta qiyaame dada waxay ku leeyihiin markaad hadasho waxa ma iska dhaaftiin waxay ku leeyihiin anagii reebeen ilaahay maalinta qiyaamo oo asagana xisaabtan siihayo maalinta qiyaamana waa beysheerin bamaanba in fijul waa shakhsi la isku xisaabinayo adi kaliga la soo taagay reebeen wax la yiraahdo ma jiraanba hebelka sheegay adi kaliga qof walba tiisa u taala nafsi waaye marka walaalayaalow intiina waxaad ka shaqeyn kartiin waa hormuudka nabadda inaad nabadda hormuud u noqotiin inaad dadkii ka shaqaysiin sida Cali Axmed Xayla sheegay in la israaco maalinba geed la fariisto maalinba meel la tago maalinba guri lagu hooyo dadka fidnada ka shaqeynaya haddaan dawladda lagala shaqeyn dawladdu waxa ma qaban karto dawladda iyo adinka yaa u badan dawladda haddaan aninku la shaqeynayn dawladdu waxa ma qaban karto dawladda haddii markii la qof caawa saas sameeyay markii la aado ama la qarinayo ama dawladdiiba laga hor imaanayo dawladdu maalin kasta dagaal kuma jiri karto waxa la rabaa marka barnaamijkaasi in waqti dheer la geliyo in loo istaago dawladdu waxay idin noqon kartaa facilitator fududayn waxa wada hadlaya waa adinka waxa la rabaa inay heshiyaan waa adinka waxa la rabaa dadkii in ka dambeeyay oo annaguna aan ognahay adinkuna ogtihiin in lagu laabto goobtooda rasmiga ah la tago heshiisku meeshuu ka go'aya kama dambaysta waa meesha aan isla ognahay dadkaasi waxay rabaan wuxuu sheeg intaan ka badanay rabaan dad waxaan ognahay inay meeshaan dadkan inay ka amirsan yihiin aaminsan hubku gacanta ugu jiro talada qayb weyn ku leh dadkaasi in lala fariisto oo geedii quraacda la tago lala fariisto u baahan yihiin meel kastoo nabaddu tagto gasho waxa geli karaa waa adinka annagoo gacansiin baan idin noqon karnaa ayaalow horta nabaddu sideeda nabaddu mar kasta socoto cadow badan ay leedahay hadda nima meeshaan wuxuu ka lahaa waxaa meesha ka jira waxaasoo dhan waa cadowga nabadda la yidhaha markii la yidhaha waa la nabdaa fidna imaanaysa dad waxay ka shaqeynayaan aqoona ka daba shaqeynaya illa banjariya la isku dayaa dada ilaahay ka cabsanayna wax la leh shaydaankiya shaqadiisa wata waxay rabtaa in loo dul qaato waxay rabtaa in loo adkaysto waxay rabtaa in waqti lagu baxsho